gudoomiyaha gobolka saaxil iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhisme riig cusub oo laga hirgelin doono deegaanka Damaan. Riigan cusub ee ay yeelan doonto deegaanka Damaan ayaa waxa hirgelinaysa shirkadda Benjamin oo ah shirkad laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta, isla markaana riigagii hore ka soo hirgelisay deegaano kale oo kamid ah gobolka saaxil. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyntii si weyn ugu mahadnaqay shirkadda Benjamin ee wadanka Imaaraadka Carabta, isagoona sheegay ahmiyadda uu riigan u leeyahay dadka ku dhaqan deegaanka Damaan iyo waliba sida uu u dabooli doono baahiyaha biyo la'aaneed ee ka jirta deegaankani, isagoo bulshada deegaankaasina ugu baaqay inay ilaashadaan riigan cusub ee maanta loo dhagax dhigay. subxaanahu wa ta'aala maanta qiyaamaha miisaankan xasanaadka hay'adii ku kordhiyo anaguna dadka halkan loo qodiyo waxa la doonayaa inay ilaashadaan oo ay daryeelaan oo anaguna aan waxaan kaga warhayno oo mas'uuliyadii xilkana saaran anagana inaanu ilaalino dadkan loo soo sameeyay loo qoday biyaha loo soo saaray iyaguna ay daryeeshaan ilaaliyaan labadina dhinac waxa la rabaa inaan ilaalino. sidoo kalena gudoomiyaha gobolka saaxil Cali Maxamed Cilmi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa isna sidoo kale u mahad celiyay shirkadda Benjamin ee wadanka Imaaraadka Carabta, isagoona tilmaamay in riigan uu wax badan ka tari doono dadka deegaankani iyo waliba xoolahooda. waxa uu sheegay inay jiraan riigag ay shirkaddu hore uga hirgelisay deegaano kamid ah gobolka saaxil, iyadoo welina ay qorshaha ugu jirto riigag kale oo cusub inay ka hirgeliyaan qaar kamid ah deegaanada gobolka saaxil. oo ah shirkad khayriyaadka gobolka saaxil ama degmada berberaba waxyaabihii ugu badnaa ka qabatay, iyadoo ceelal hore ka qotay oo kankii saddexaad yahay, iyadoo madaarisada halkan gobolka ka samaysay iyo masaajido. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. arrinkaana waa arrin aan la dhayarsan karin oo aan aad iyo aad mahadnaqayno cidda hawsha wada walaalaha Abu Cali. waa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka socotay shirkadda Benjamin ee wadanka Imaaraadka Carabta, iyagoona sheegay inay mar walba ay u taagan yihiin sidii ay meesha uga saari lahaayeen baahida biyo la'aaneed ee ka jirta deegaanada gobolka saaxil. الخير للبدو الرحل. geesta kalena maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada berbera ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka saaxil, waxaana kulankan soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland, sidoo kalena ay taageeraysay dawladda hoose ee degmada berbera. kulankan oo lagaga hadli doono muddada uu socon doono maamul u dejinta dawladda hoose, waxaana uu kulankan ka qabsamay hotel barwaaqo ee magaalada berbera. mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi hadallo kooban oo ay halkaasi ka soo jeediyeen waxay ka warameen kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay shaqaalaha laamaha dawladda ee gobolka saaxil. barnaamijkan maamul daadejinta ah oo la doonayo in adeegii bulshada la dhigo halkii ku habbooneed oo aanay dadweynihii aanay ku dhibaatoonin maamulkii. marka dowladda dhexe laga soo dejiyo ee dowladda hoose loo soo dejiyo, dowladda hoosena way sii daadejin doontaa iyaduna, ma noqonayo maamulku miduu ku xidhnaadan meel oo cidun loo daba fadhiyo. marka maanta insha allah waxaynu furan doonaa barnaamijkan maamul daadejinta ah oo ay idinkuna hay-adiha ka timaadeen dawladda iyo laamaha ka timaadeen dawladaha hoose iyo maamuladii kale haddii badan ka timaadeen hay-adaha dawladda uu ka muuqdo maamul daadejin oo ay si isugu xidhmayeen iyo waxyaabaha ay hadhow toole xiriir ee ka dhaxayn doona ama waxa lagu wareejin doono dawladaha hoose ay noqdaan oo ay kasbadaan masalan waxbarashadii kale. Khalid Xasan Nuur, Bulsha TV, Berbera.